بسم الله الرحمن الرحيم marka hore horta waan idin soo dhaweynayaa kusoo dhawaada wasaaradda biyaha iyo tamarta waxaan u maleynayaa muddo 2 week ah ayaan xafiiska hadda fadhiyaa wasaaraddu waa wasaaradaha aasaasiga u ah nolosha bini'aadanka waana wasaaradaha ugu baaxadda weyn Soomaaliya iyo gaar ahaan Jubbalandba waxaan la tacaamulnaa inta badan biyaha iyo korontada iyo hadda shaqada wasaaradda iyo mandate-kanagu uu yahay labaduba waxaan u maleynayaa dadka reer Jubbaland ama Soomaaliyaba ahmiyad weyn way u leedahay shaqooyin fara badan oo ka socdo ama la filayo mustaqbalka inay ka qabsoomaan way jiraan waxa aniga hadda inta badan waqtigeyga aan gelinayay inaan wasaaradda shaqaalaheeda iyo projectyada socdo inaanu isbarano structure inuu yeelano chain of commandiga sida la isugu report gareeyo inuu hagaago project updates fara badan inaan helno projectyada la dhameeyayna at least reportyadoodii in la xiro intaas hadda labadii week hadda tagay shaqadanada u badneed waxa inta noo sii dheeraa donor organizationska ama deeq-bixiyayaasha noqotaya dowladda dhexe ee federaalka ah waxaa nagala joogay agaasimaha guud Cabdirasaaq ayaa nagala joogay maalmahan isaguna waynu kala update qaadanay waxyaalaha labada xafiis ay ka wada shaqeyn karaan iyo mustaqbalka sida aynu u wada xiriiri karno inuu wada shaqeyn karno ayaan inta badan hagaajinaynay waxaa maanta ina soo booqday xafiiska hay'ad la yiraahdo IOM oo iyaduna role weyn ka ciyaarta biyaha haddana rabta inay fuliso mashruuc weyn oo yoontooy la rabo in laga hirgeliyo ama biyo gelinta Kismaayo ama haddii la dhaho Kismaayo urban water supply hadba ninba siduu u yaqaano mashruucaasi oo stageskii ugu horeeyay maraya beginning stage weli wax hadda implementation ma jiro waxaa jirta xayeysiin ay meel ku qoreen website-yada oo ay leeyihiin dadka interest gareynaya oo kale projectigan marka inta aanan mashruuca la guda gelin ama xayeysiintiisaba aysan sii amba qaadin ayaa waxaan rabnay inaynu kala war qaadano maadaama aniga wasiir cusub aan ahay xafiiskana aan ku cusbahay projectigana aanan horey ugu soo dhex jirin aniga ayaa IOM dalbaday inay imaadaan project coordinator-adooda iyo managementigooda inaynu kulanno bal at least projectigan oo projecti Jubbaland iyo Soomaaliyaba wax weyn oo investment ah uu noqon doono mustaqbalka haddii uu hirgalo in aan foundation ka hagaajino bilowgiisii ugu horeeyay inuusan si qaldan ku bilaabmin saasaan isugu nimid update badan baan ka qaatay waan la wadaagi doonaa xafiiska iyo state-kaba updateska faraha badan ee aan projectiga ka helay waxaan rajaynaynaa haddii projectiga si sax loo hirgeliyo Jubbaland iyo maamulka inay ka faa'iideysan doonaan ayaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay awoodda la yiraahdo ugu dambeyntii waxaan aad wax ugu farxo ah oo aan shalay iyo maantaba arkayay projectiyo ay wasaaraddu qayb ka tahay oo la hirgeliyay oo ay macadkan KTI oo uu hirgeliyay oo aan soo booqday projectiyo waaweyn baan ku arkay oo waxtar leh oo ay ka mid ahaayeen plumbingka dad la barayo arday la barayo sida tuubooyinka la isugu xiro ama biyo gelinta loo sameeyo korontada labada qaybba wasaaraddu way hoos imaadaan plumbingka arday baranahaya iyo maxaan ku dhahaa projectigan kaleeta tailoringkana waa ku jiray ama harqaanka intuba waa in dadka reer Jubbaland ay ka faa'iideysan karaan bulshada Soomaaliyeedna waxtar u leh waxaan maqli jiray maama Ingiriis oo dhigi jirtay give a man a fish so you can live one day or teach him how to fish for the rest of his life ku noolaado macnaheedu waxa waaye ruuxa wax yar oo lacag si hal maalin ku noolaado ama bar sida loo kalluumaysto si uu u noolaado mustaqbalka noloshiisa inta ka hartay marka dadkaasi wasaaraddana ay roolka ku leedahay IOM-na mashruuca ay noo hirgelisay KTI-na soo maray waa wax skill training ama tababar xirfadeed waxtar leh dadkaana caawin doono mustaqbalka iyo community-gana wax weyn kusoo kordhin doona ayaan rajaynaynaa ugu dambeyn annagu wasaarad ahaan waynu howlgalnay mandate-kanagu waa ballaaran yahay portfolio-ha wasaaraddu wuu weyn yahay
waxa kaliya oo aan waqtiganaga gelin doona ayaa wuxuu yahay in bulshada loo shaqeeyo sida ugu wanaagsan ee loogu shaqeyn karana aynu waqtiganaga u hurno hadduu ilaaha awooda la yidhaahdo waa mahadsantihiin class iyo ragga kalete ee miidiyaha ah ee na soo booqday ee update-kana warsaday asalaamu calaykum